marka dajaalkan laga warramayo sidiisaba adduunka hadda miyuu joogaa mise dib buu ka dhalan doonaa ma waxa hadda joogaa jawaabtu wax way haa dajaal waa joogaa adduunka waa nool yahay hadda bal waqtigii nebigu noolaa adduunku ka mid yahay dadka waxan adduunka jooguu ka mid yahay laakiin inuu soo baxo oo awoodiisu soo baxdo oo fasaad muujisto oo yani wax way atbaac iyo dad raacsan yeesho oo waa waqtigeeda dambeeya ama joogidiisa wuu joogaa sidaana waxa ku tusaya xadiidka caamkee tamimin ad-dari qisadii jasaasada bil ikhtisaar waxay ahayd tamimin ad-dari ninka la yiraahdo ayaa dad eheladiisa reerkiisa iyo isaga ayaa waxay ku safreen badda doon bay qaateen waa xilligii nabiga sallallahu alayhi wasallam markay meel dhex marayaan badda dhexdeeda doontiina ay saaran yihiin ayaa waxa dhacday mawjada ku kacay khatar bay galeen doontii baa la ciiriday markay khatar dareemeen ayagoo isla malaha waad halaagsamaysan waa ilaa sodoomeeyeen nin waa ayaa waxay ku soo baxeen meel jasiirad ah markaasina war jasiiradan inagu leexiya bal inaan xoogaa aan inta baddu dagayso jasiiradii markay ku leexdeen sidaadii ay uga dageen doonta uga dageenba waxay ku soo baxeen daabad xayawaan yar xayawaan kuusan oo isagoo dhan wada timo ah oo madaxiisa iyo dabadiisa aan la kala garanaynin kulli timo wada saaran yihiin isagoo dhan waa wada dhogor dhankeebaa madax u ah oo dhankeebaa minja lama kala yaqaano xayawaankaasaa ku soo baxay waa yaabeen meeshan cidladaa iyo xayawaanka noocana waa garan waayeen saa wax yar hadday joogeenba way la hadashay war maxaad ahaydeen af caadiya kula hadlaysaa war maxaad ahaydeen waa isu sheegeenoo dad meeshaasaanu sidaasaan ahayn adigu maxaad ahayd ina keenay tiri ina keena nin meeshana idin yeedhahaye kaalayoo soo baxa way raaceen ayadii waa horwad siday u waday ayaa waxay u geysay nin aad u weyn oo xoog badan oo xidhxidhan jasiiradduu ku xidhxidhan lugaha iyo gacmaha iyo kulli isagoo dhan waa xidhan waa jeebaysan ninkii markay u yimaadeen buu marka warsaday warwarrama maxaad ahaydeen xageed ka timaadeen jasiiratul carab baan ka nimi wuxuu ka warsaday marka dhulka meelo ka mida shaam meelo ka miduu ka warsaday war meeshii heble la dhihi jiray weli timir ma ka baxdaa haa annaga markii inoogu dambaysay timirtii waa ka baxdaa baddii la dhihi jiray hebla weli biyo ma ku jiraan haa nebigii carabta ka warrama ma soo baxay haa carabi ma la dagaalantay mise way raacday way la dagaalameen inay rumeeyaan baa u roonaan lahayd buuri waa waday su'aalo badan u weydiinahay yee markii dambe waxay yidhi war adigu maxaad ahay adigu bal noo warranoo maxaad ahay markaasuu wuxuu yidhi aniga waxaan ahay masiixu dajaal baan ahay wakhtigaygii baanan sugayaa meeshaasaanna ku xidhnahay arrimaha aan idin weydiiyey markay yimaadaanna wakhtigaygii baa soo dhowo waan soo bixi doonaa nimankii warkaa markii la isdhaafsaday way soo noqdeenoo doontoodii bay dib u soo qaateen tamiim ad-dari nebigu u yimi sal alla alay wasalam qisadii buu uga warramay nebiga markuu qisadii u sheegay saxaabadii buu nebigu isugu yeedhay sal alla alay wasalam hadal buu u jeediyey wuxuu yidhi warkii hadda ka hor aan idinka sheegi jiray masiixi dajaal tamiim ad-dari baaba warkiisii wadee kaalaya buu nebigu sal alla alay wasalam warkii tamiim ad-dari uu keenay buu nebigu saxaabada u sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidkaasi marka wuxuu ku tusayaa masiixi dajaal xataa xilligii nebiga sal alla alay wasalam inuu jiray oo joogay oo jasiirad ku xidhan yahay waa jasiiradee allahu aclam dadka qaarkood hadda waxay leeyihin war adduunkii oo dhan iska dhaaf korkiisa wixii yaallay gudihiisa wixii yaallay bay satalaydyadii soo sawireen nin intaa la ego meel ku xidhxidhannimayo waa la ogaan lahaa ee warkaasi meel saara la leeyahay war u kaadiya saas ma aha
saas ma dhulka gudihiisana lama soo qaadin korkiisana lama soo qaadin asraar iyo xaqaa'iq fara badan baa dhulka korkiisana taalla bini aadanna wax ka ogaanin waxaa ka daran qolo soo socoto qabiil dhan oo meel degan oo nusuustu sheegtay oo dhulka korkiisa degan oo wax ilaa hadda waxba laga ogeyn baa jira iskaba dhaaf nin meel ku xidhxidhane qabaa'il dhan iyo ummado dhan oo dhulka korkiisa degan oo weli aan la ogaanin baa jira oo nusuustu sheegtay sidaas daraaddeed masiixi dajaal waa nin jooga oo jira oo aadam carruurtiisii ka mid ah